yaa mudan inuu maamulka galmudug u dabaaldego waa faallada aan kugu talagalnay isbuucan. markasta oo taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha Agoosto waxaa loo dabaaldegaa sanad guurada maamulka galmudug, balse dadka qaar u yaqaanaan ama lagu banaanayso galmuran. gaari allay taqaane maamulka galmudug ama galmuran waxaa jira dad aan mudnayn inay u dabaaldegaan haddaanay noqonayn sumayno dhan raacday ama waxa afka carabiga lagu yiraahdo immaca. ninka dadkiisii iyo deegaankiisii al-shabaab haystaan laga soo bilaabo xilligii maxaakimta ilaa ilbiriqsigan la taagan yahay ee 2024 sida deegaanada kala ah wabxo, dac, ceelbuur, jacar, diri, bargaan, galhareeri, cagacade iyo kuwa la midka ah ee ilaa iyo maanta aan maamulkaasi u qaadin hal tilaabo lagu xureynayo hal mashruuc horumarineed, shaqo abuur, nabadgelyo, nidaam dawladeed, caafimaad iyo waxbarashada heerarkeeda kala duwan. bal qofkaasi muxuu ugu dabaaldegayaa maamulka galmuran haddaanu qof dhoohan ahayn? dadka aan sideedaba mudnayn inay u dabaaldegaan maamulka galmuran waa dadka ka soo jeeda deegaanada aan kor ku soo xusay iyo kuwa la midka ah ee lagu tiriyo inay galmuran ka tirsan yihiin, balse ummadaha kale ka haray 14 sano, taasoo laga soo bilaabo 2006 ilaa 2024. dadka maanta deegaankooda waxa kaliya ee ka furan waa xarumo argagixiso ama mucaskariyada al-shabaab leeyihiin ee dhalinta deegaanada lagu baro sida madax muslim loo jabiyo, marra Soomaaliyeed la isugu qarxiyo oo loo xasuuqo muumin musaafir ah oo aan waxba galabsanina miino jidka loogu aaso. ninka dadka iyo deegaanka ka soo jeeda ee sanad guuro galmuran u dabaaldegaya sow xoolo iyo lax dhukan coli abaar moog ma aha, soo maaha qof aan kala garan karin wax mudan inuu u dabaaldego iyo wax aan ka istaahlin haba yaraatee u dabaaldegis sida maamulka galmuran. siyaasiyiinta dadka iyo deegaanka ka dhashay ee maamulka galmuran iyo dawladda federaalka ku metala balse aan tagi karin deegaankoodii ee dhowr sanaba galmuran kuraasa u doonta kuma dhacaan inay runtaa qaraar ka hadlaan oo waxay ka baqayaan in kuraasta ay ku fadhiyaan ay waayaan oo siyaasiyiinta ka soo jeeda reerka ay u shidan tahay maqaayadda maamulka dadka loo ruxumkooda ku soo dhisaan sidaan kursiga uga tuuraan. dawladda federaalka ah waxaa madax u ah madaxweyne xasan sheekho deegaanada aan kor ku soo xusay u codadaysan oo taariikho hore daba socdo oo iska daa in deegaanada la xoreeyay ee shaqo ka dhigtay marna inuu ka dhigo deegaanka kaliya ee dawladdiisa cunaqabateyn saartay iyadoo ugu soo marmarsiyootay la dagaalanka al-shabaab iyo mar kalena inay ciidankii dawladda ka soo saareen iyadoo ciidankii deegaanka ee uu hogaaminayay Korneyl Ismaaciil Cabdimaalik taliyihii hore ee ciidamada kumaandoosa danab uu ilaa ceelbuur gudaha u galay iyadoo afarta dhinac shabaab ka xigo balse dib u soo baxay kadib markay fahmeen shirqoolka lagu leyn rabay sidii kii ka dhacay deegaanka Coosweyne. waa su'aale haddayaan mudan inuu maamulka galmudug ama galmuran u dabaaldego. waxaa sax ah inuu dabaaldego galmuran ninka dadkiisa iyo deegaankiisa xor yihiin, nabad yihiin, booqan karo markuu doono, nidaamka maamulka galmudug gaarsiisan yahay, mashaariic horumarineed ka socdaan, sanado aad u dheerna ka socdeen, isbitaallo, dugsiyo waxbarasho, jaamacado, horumar dhismooyin magaalo, wadooyin iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaale ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo economic infrastructure uu ka jiro. ninka waa ninka mudan inuu u dabaaldego maxaa yeelay ninka maamulka wax badan ayuu ku haystaa, laakiin dadka ka soo jeeda deegaanada kale waa u doqonnimo iyo dullinimo inay galmuran u dabaaldegaan. waa gunnimo iyo garasho xumatii ugu liidatay inaanu qofkaas isweydiin aan u dabaaldegay horta maxaan u dabaaldegaa. nin damjadiid iyo kuraasta reerkiisa saluugsan ayay halhays u noqotay maxaan faa'iidnay. nin kaloo qafaal lagu geeyey furimaha dagaalkii 770 ayaa laga sheegay arkaaraan ku dhalo, kaaramardhana ku dhimo, araan dhindhe xan ku dhindhay. xaqiiqdu waxayse tahay rag waxaa ugu liita ninka aan xisaabtamin. gabagaba iyo gunaanad dadka iyo deegaanada
wax badan ku dheefa maamulka galmudug waa ka mudan yahay inay u dabaaldegaan, balse inta kale kama mudna u dabaaldegis dhicis ah, ileen gaari allay taqaane. waxaanse ugu dambayn si dareen laxawsi iyo kalgacal walaaltinimo ah ugu ducaynayaa maamulka galmudug inuu allahna wada gaarsiiyo maalinta deegaanada maamulka galmudug oo dhammi wada mudan yihiin inay wada dabaaldegaan. waa anigoo ah cabduqaadir maxamed cismaan oo loo yaqaan cabdi boqor oo idin leh mahadsanidin.